السلام عليكم صاحبيال سو dhawaad markate halkan waa Sun Group صاحبيال ana waan hay saaxiibkina صاحبيال muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa ka hortag in lagu isticmaalo WhatsApp-kaaga ama se hadii aan muuqaalka si fiican u jilaaxween tusaale mobilkaaga ayaa wax ka qaatay wiil ama se gabar qof ha ahaado then wuxuu furtay internetka wuxuu gudaha u galay wada shaqeysiga isticmaalka qaasatan WhatsApp-ka ayuu galay oo waayo WhatsApp-ka u furan yahay cidna yani markaasi oo password-kaaga ma xirnaa marka maanta waxaan ku tusayaa farsamo WhatsApp kula xirta cajiib ah hadii aad WhatsApp-ka u isticmaasho ay sacidna ka furi karin ilaa adigu aad u furto marka farsamadan ayaa rabnaa maanta inaan barano inta aan farsamadan gudaha u galin saaxiibayaal isku daya in muuqaalkan saaxiibayaal aad like saartaan waan hubaa in muuqaalkan like saar doonto hadii aad ka mid tahay saxaabteena Sun Group waan hubaa runtii waan ku jiifaa marka saaxiibayaal muuqaalkan like saara sidoo kale wixii ra'yigiina igu reeba qaybta commentiga sidoo kale wixii markaas yani su'aalaha ama si aad u baahato igu weydii qaybta commentiga muuqaalkani hadii aad aragto yani in faa'iido leeyahay lawadaga asxaabtada oo taabaqay in qaybta share okay muuqaalkani aan gudaha u galo marka sidoo kale saaxiibayaal waxa jira dad aan soo qaatay yani commentiyada waa soo qaatay waxaan soo saari doonaa insha Allah shaashada aan soo saari doonaa waa kuwan commentiyadan weeyaan marka saaxiibayaal marka runtii aan dadkan ayaa hadda soo qaatay marka insha Allah commentiyada waa yani waa soo qaadan doonaa dadkan ayaa hadda wiilashan ayaa soo qaatay commentiyada waa soo qaadan doonaa runtii yani hadii markaasi yani aan ku arkay qaybta commentiga marka saaxiibayaal bal aan gudaha u galo muuqaalkan WhatsApp-ka okay bal aan soo furto WhatsApp-ka sirta ogaano WhatsApp markuu hagaan keeno waxaan ka dooran doonaa qaybta halka ay ku qoran tahay sidaas dhibcood ee sare ee ku dhufan doonaa sidaas dhibcood markii aan ku dhufano waxaan dooran doonaa waan naqaana runtii waxaan dooran doonaa halka ay ku qoran tahay sidin ay ku qoran tahay ana calaamadeey baan ku dhufan doonaa halkaas markaan ku dhufto waxaan ka dooran doonaa halka ay ku qoran tahay account markaan ku dhufto waxaan isticmaali doonaa maanta two step verification halkan ay isticmaali doonaa okay wuxuu ka caawin doonaa markii aad two step verification aad ku sameeyo ama aad sameeysato waxaad awood doontaa in WhatsApp-kaaga ama internet-kaaga oo furan inaad ka tagto then ruuxii WhatsApp-kaaga gala inuu soo password adigu aad ku xirtay WhatsApp-ka kaliya taa two step verification ka ku dhufto wuxuu leeyahay halkan enable leh halkan ayaa ku dhufanaya enable then wuxuu leeyahay marka password yani ku xiro si marka dadka aysan kula isticmaalin okay salaan password baa iska xiriyaa 226606 wuxuu leeyahay xaqiiqi ama ku celi okay then marka wuxuu leeyahay email ku dir ayuu leeyahay waxa leeyahay email yani hadda uma baahna email iskiibiga ayaa oranaya then okay ba oranaya marka hadda waxaad aragtaa inuu yiri two step verification is enable yani hadda waa ku sameeysan yahay okay marka si aan ogaano marka waan ka baxayaa oo waxaan leeyahay clear ayaan oranayaa oo iga tirtir WhatsApp-ka iso fur marka hadda WhatsApp jawaad aragtaa WhatsApp-kayga wuxuu leeyahay enter you two step verification waana gelisaa si aad WhatsApp-kaaga gudaha u gasho marka hadii aan gudaha galo then وكذا سيدس يعني أيها أفرق كرتا مركز سحبي لو حفيه إن العشق كان أدكو حسابان أتكشن هدي أتكشن موقعك لايك سيدو كلا ديال كم تسحبتنا فضلا إن كومنتي حراء يجرب سيدو كلا موقعك كان أصحابته لو ذاك وقف إستان وعبد السميح محمد أوكل مركز موقعك أنت كل بنو موقعك حين تكون بنو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.